sanadku waa 2016 wadooyinka Istanbul iyo Turkiga gebi ahaanba waxa haysta taangiyo dagaal sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee gaafureegaya hawada labadan magaalo dadkuna wax maqlayaan rasaas qaraxyo iyo sidoo kale wadooyin iyo buundooyin la xiray warbaahinta qarankana gebi ahaanba waa la qabsaday waana la wareegay ciidamo hubeysan ayaana sheegay in gebi ahaanba dalka ay la wareegeen afkambina ku qabsadeen laakiin waxa dhacay daqiiqado yar kadib ayaa bedelay taariikhda Turkiga madaxweynaha dalka Recep Tayyip Erdogan oo aan loogeyn halka uu ku sugan yahay ayaa si lama filaan ah uga soo muuqday telefoonkiisa FaceTime-ka isagoo shacabka ugu baaqay hal eray oo kaliya wadooyinka u soo baxa wax yar kadibna waxa la arkay milyan qof oo wadooyinka u soo baxay hor istaagayna taangiyada wadooyinka taagnaa ciidamada afkambiga waday waxay ogaadeen inay la dagaalamayaan dadka rayidka ee xukumi doonaan marka ay la wareegaan ama afkambi ku qabsadaan dalka balse su'aashu waxay tahay sidee ayaa afkambigani u fashilmay saacado gudahood iyo si ka dambeeyay afkambiga saaxiibayaal muuqaalkan waxaanu ku wadaagi doonaa ama kaga warbixin doonaa dhacdadii taariikhiga ahayd ee afkambigii Turkiga dhacdo cajiib ah adduunkuna si weyn isha ugu hayay waqtigaasi Turkigu wuxuu ahaa dal ciidamada militarigu ay saameyn weyn ku lahaayeen siyaasadda dalkaasi tan iyo sanadkii 1960 ciidamada militarigu dhowr jeer ay la wareegeen xukunka dalkaasi iyagoo ku doodayay la ilaaliyo dastuurka iyo sidoo kale nidaamka dawladeed in markii uu Recep Tayyip Erdogan yimaaday xukunka sanadkii 2003 wuxuu bilaabay inuu yareeyo awoodda ciidamada isbedel waaweyn ayaana dhacay waqtigaasi saraakiil badan ayaana xilka laga qaaday halka qaar kale la saaray maxkamado ciidanka oo ahaa awood siyaasadeed ayaa si tartiib u lumiyay saameyntoodii dad badan ayaa rumaysan inay arrintan abuurtay cadho gudaha ah oo militariga ah dhanka kale xiriirka Erdogan iyo wadaadkii caanka ahaa Fethullah Gulen ayaa gebi ahaanba burburay labadoodu markii hore waxay ahaayeen xulafo laakiin markii dambe waxay isu bedeleen cadow oo labadooduba waxay ku kala tageen siyaasadii dhexdooda taallay dawladdu Gulen waxay ku eedeysay inuu aasaasay shabakad qarsoon oo ku dhex jirta ciidamada booliska garsoorka iyo sidoo kale hay'adaha dawladda balse Gulen gebi ahaanba arrintaasi waa ka soo horjeestay eedana waa uu dadafiyay 15 July sanadkii 2016 wax walbaaba waxay bilaabmeen habeen fiidnimo saacaduna qiyaastii waxay ahayd 10 fiidnimo dadkuna waxay arkayeen taagiyo maraya buundooyinka Obsper waxayna u maleynayeen tababar military laakiin wax yar kadib waxa la maqlay rasaas dhacday diyaaradaha F-16 oo si hoose u duulaya dusha sare ama hawada sare ee labada magaalo Ankara iyo sidoo kale Istanbul ciidamada ayaa qabsaday xarumo muhiim ah telefishinka dawladda ee TRT waxa galay askar hubeysan wariyihii telefishinkana waxay ku qasbeen inuu akhriyo warqad uu ku sheegayo in gebi ahaanba ciidanka militarigu ay la wareegeen gudaha dalkaasi maamulayaana afkambina ku qabsadeen dalka laakiin waxaanay cidna filayn ayaa dhacay Erdogan lama qaban wuxuuna ku sugnaa magaalada Marmaris wuxuuna telefoonkiisa FaceTime-ka ka soo galay hab live ah oo ay fududeysay warbaahinta CNN ee Turkiga uu leeyahay wuxuuna shacabka ku yiri ha u ogolaanina inay dalka idinka qaataan dhammaantiin wadooyinka soo gala oo soo baxa qofna ma filayn muuqaalkan inuu bedeli doono taariikhda masaajidada dalka oo dhan waxa laga yeeliyay salaad lagu baaqayo in lagu dhiirigeliyo shacabka daqiiqado gudahoodna boqolaal qof ayaa u soo baxay wadooyinka soona buux dhaafiyay qaar waxay hor istaageen taangiyada qaar waxay fuulayeen gaadiidka dagaalka qaar kalena waxay la hadlayeen askartii badankoodu waxay ogaadeen inaanay shacabku marnaba ka baqayn oo ogolayna in la qaato dalkooda ama uu ka dhaco dalka afkambi dalkoodana la wareego haddaba waxa isweydiin mudan sidee ayaa ku fashilmay afkambigii la qorsheeyay lana diyaariyay falanqeeyar siyaasadda ayaa arrimo kala duwan u kala qaaday fashilka ku dhacay afkambigani falanqeeyaashu waxay tilmaameen dhowr sababood sababta koowaad ayay ka dhigeen afkambigu si degdeg ah ayaa uu ku bilowday mana jirin wax qorshe ah oo dhameystiraya afkambiga sababta labaad ayay ku sheegeen in Erdogan aan la qaban taasina ay siisay fursad weyn oo uu kula hadlo shacabkiisa sababta saddexaad ayay ku sheegeen in booliska Turkigu garab taagnaa dawladda sababta ugu dambeysana waxay ka dhigeen inay shacabku muujiyeen isku duubni iyo sidoo kale
inay dalkooda u istaagaan kana difaacaan dhacdo kasta oo sii wadi karta inuu afgambigani sii socdo. dhacdooyinka ugu waaweyn ee habeenkaasi dhacay waxaa ka mid ahaa in diyaaradaha duulayay hawada sare ee Ankara iyo sidoo kale Istanbul ay duqeeyeen baarlamaanka dalkaasi. tan ayaa noqotay dhacdadii ugu weyneed ee dhacda, maadaama oo ay tahay in diyaarado dagaal oo dalka u adeegayay ay duqeeyaan isla baarlamaankii dalkaas. markii uu afgambigu dhamaaday, in ka badan 250 qof ayaa geeriyooday, halka kumanaan kale ay dhaawacmeen. boqolaal askar ah ayaa isdhiibay. muuqaalo badan oo dunida ku faafayna waxay muujinayeen iyadoo askartu isdhiibayso oo wadooyinka lagu qabqabanayo. markii uu afgambigu dhamaaday, dowladdu waxay qaaday tallaabooyin waaweyn, waxayna bilowday howlgalkii ugu weynaa ee lagu sifeynayay hay'adaha dowladda. 10,000 oo askar ah, garsoorayaal, macallimiin, boolis, jaamacado iyo shaqaale dowladeed dhammaantood waxa lagu eedeeyay inay la shaqeynayeen galan afgambigana ay qayb ka ahaayeen. kumanaan ayaa shaqada laga eriyay, kumanaanna waa la xidhay. dowladdu waxay sheegtay inay ilaalinayso amniga qaranka. hay'adda xuquuqda aadanaha iyo dalal badan oo reer galbeed ah ayaa walaac ka muujinayay baaxadda tallaabooyinka uu qaaday Turkigu ee uu ku nadiifinayay hay'adihiisa dowladda. balse tan waxay tallaabo uu Turkigu qaadayay una ahayd mid uu maanta ku yahay Turkiga maanta jira. balse su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, yaa ka dambeeyay afgambiga? dowladda Turkiga oo waqtigaas hadashay waxay sheegtay in Fethullah Gulen uu ka dambeeyay ahaana maskaxda abaabushay afgambigani. Fethullah Gulen waxa uu ku noolaa Mareykanka, waxaanu diiday eedeymahaasi ay u soo jeedisay dowladda Turkiga. Turkigu waxa uu ka codsaday in loo soo gacan geliyo Fethullah, laakiin Mareykanku wuxuu sheegay in loo baahan yahay cadeymo sharciyeed oo ku filan ka hor intaan tallaabo kasta oo noocan ah aan la qaadin. arrintan ayaa muddo dheer saameyn ku yeelatay xidhiidhka Ankara iyo sidoo kale Washington. kadib dhacdadaasi, Turkigu wuxuu sameeyay saameyn aad iyo aad u ballaaran dalkiisana wuxuu ku sameeyay dubahabeyn taas oo hogaaminayay madaxweynaha dalkaasi ee Recep Tayyip Erdogan. kadib afgambigii sanadkii 2016 wuxuu bedelay Turkiga. awoodda madaxweynaha ayaana sii xoogaysatay. nidaamka dowladeed wuxuu isu bedelay nidaam madaxweyne. ciidamadana waxa lagu sameeyay dubahabeyn ballaaran. sirdoonka iyo sidoo kale booliska ayaa la xoojiyay. maanta 15 July, Turkiga waxa laga xusaa maalinta dimuqraadiyadda iyo midnimada qaranka. afgambigii Turkiga ma ahayn kaliya isku day military, waxa uu ahaa dhacdo badashay jihada siyaasadeed ee dalka Turkiga. dad badan waxay u arkaan guul shacabku ku difaacdeen dowladooda, halka kuwa kale ay rumaysan yihiin inay tahay wixii ka dambeeyay inay horseedeen isbeddello waaweyn oo saameeyay xorriyadooda iyo siyaasadda gudaha. laakiin hal xaqiiqo ayaa jirta. habeenkaas 15 July sanadka 2016 wuxuu galay taariikhda dunida, waana habeen ay malaayiin qof xasuusan doonaan. qaar ay dhacdadan la kulantay oo gudaha dalka ku noolaa, qaar warbaahinta ka daawanayay iyo qaar kale oo dib ku ogaanaya. adigu 2016 ma ka mid ahayd dadkii sida gaarka ula socday dhacdada Turkiga ee afgambiga, mise hadda ayaad maqlaysaa afgambigii Turkiga?